السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mid ka mid ah dagaaladii ugu weynaa ee muslimiintu galaan kana mid ah kuwii ugu muhiimsanaa oo ka qayb qaatay faafinta diinta islaamka oo inay diinta islaamka gaadho waqooyiga caalamka iyo bariga caalamka iyo soo afjaridii dawladdii weyneed ee muddada qurunta ku xukumaysay adduunka dulmiga waana dagaalkii qaadisay ee muslimiintu la galeen dawladdii furus. muuqaalkan maanta waxaan kaga hadlaynaa dagaalkii qaadisay bilow ilaa dhammaad siduu u dhacay oo qasab nagu tahay inaan taariikhdeena barano. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. dagaalkan qaadisiye wuxuu dhacay waqtigii Umar bin Khattab ilaahay ka raali noqdo uu khilaafada muslimiinta hayay laakiin si aynu fahanno dib aan ugu yara noqono waqtigii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam noolaa. Nabi Muhammad wuxuu laba warqadood u diray labadii dawladood waqtiga adduunka ugu awoodda badnaa dawladdii Ruum iyo dawladdii Furs oo ugu yeedhay diinta islaamka laakiin labadooduba way soo diideen. welibana dawladdan aan maanta kaga hadlayno ay muslimiintu dagaalka la geli doonaan way ku jeesjeestay nebiga oo waxaaba ugu hanjabeen bayna jasiiradda carabta qabsan doonaan. محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن أبيت فعليك إثم المجوس. أنت يا شلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع. انت كدبنا محمد صلى الله عليه وسلم وقريودي waxaana bilowday inay qaar badan diinta dib uga laabtaan oo qaarna yiraahdaan zakada bixin Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu markuu qabtay khilaafada islaamka wuxuu la dagaalamay kuwa diinta dib uga noqday waxaanu bilaabay inuu mideeyo dawladda islaamka waqtiga jasiiradda carabta ka tilmaysay. isla markiiba Abu Bakr ma nasan oo wuxuu diyaariyay ciidan uu Khalid bin Walid uga dhigay hogaamiye oo u diray dhankaasi dawladdii weyneed ee Furs. ilaahay markiina waxay ku guuleysteen ciidankii Khalid bin Walid watay dawladdii Furs dagaalada fara badan kaga adkaadaan oo ay kamid ahaayeen dagaaladii Walaja, Nahda iyo Kadma. Khalid oo guulihiisii sii wato koonfurta Ciraaq ayaa waraaqad waxa uu timid Abu Bakr Siddiq soo qoray oo ugu sheegay inuu muslimiinta Shaam ka dagaalamaya uu taakul ahaan ugu tago. saas aanu Khalid kaga dhamaaday la dagaalankii dawladdii Furs oo ugu wareegay dhanka la dagaalanka dawladdii Ruum. xaggaasna waxaa ka dhici doona dagaal ay muuqaal hore kaga soo hadlay Yarmouk ay muslimiintu ku jabin doonaan dawladdii Ruum. dawladdii Furs markay aragtay si muslimiintu dagaaladii koobnaa wada galeen u jabiyeen waxay bilaabeen inay dib iskugu noqdaan oo khilaafka dhexdooda ka jira boqortooyada isku haystaan iska daayeen oo midoobaan si muslimiinta u wajahaan. waxaana boqor doortay nin Yazgard lagu magacaabo suu boqortooyada dib ugu mideeyo oo ciidan fara badan u diyaariyay si muslimiintu uga hortagaan. Yazgard markii sida boqortooyada lagu dhiibay isla markii wuxuu ururiyay ciidan aad u fara badan waxaana madax uga dhigay nin dagaalyahan ahaa oo Rustum lagu magacaabi jiray. dhanka muslimiinta waxaa geeriyooday Abu Bakr Siddiq waxaana khilaafadii la wareegay Umar bin Khattab. Umar markuu maqlay siday Furs ciidan u urursadeen isaguna wuxuu bilaabay inuu muslimiinta iskugu yeero jihaad waxaana uu ururiyay tirada u badnayd muslimiinta ee ciidan noqoto waqtigaas 36,000 oo askari waxaana amiir uga dhigay Sa'd ibn Abi Waqqas. Umar markaa wuxuu amray ciidanka inuu dhaqaaqaan dhankaasi qaadisiye meel lagu magacaabo oo Ciraaq ku taali jirtay laakiin hadda Kuwait ku taalo. isla waqtigii ay muslimiintu qaadisiye gaareen Furusna way soo gaareen oo waxay ka soo talaabeen webiga dhanka qaadisiye ku yaala ee Catiq lagu magacaabo. ciidanka Furs ee Rustum watay tira ahaan waxay gaadheen inta u dhaxaysa 90,000 ilaa 120,000 askari. inta kaliya ma ahayna waxa kale wateen 40 maroodi oo la tababaray oo lagu talagalay inay ka cabsiyaan fardaha sidoo kale xataa dagaalamada dadka leynaya. muslimiintuna maalinka ka hor hore ma aragba maroodi dagaalamaya. اللي سطرها المسلمين كانت بداية فتح بلاد فارس. خطوة مهمة في تنفيذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بنشر الإسلام في العالم. أهلا بكم. labada ciidan markay soo hor istaageen Sa'd ibn Abi Waqqas wuxuu ka tagay goobtii dagaalka oo wuxuu istaagay meel qasri ah sababtoo ah dhaawacyo culus baa ku yaalo dagaalka ma geli karin waxaana uu magacaabay ciidanka Khalid bin Arfata nin lagu magacaabo saxaabi ahaa. Sa'dna qasrigii meesha ku yaala korkeeda ayuu dagaalka ka maamulayay. sidii caadada ahayd dagaaladii hore waxaa isku soo baxay geesiyaashii labada ciidan 4 muslimiinta ka soo baxay iyo 4 dhankan kale Furs ka soo baxay. nasiib wanaag 4tii Furs ka soo baxay muslimiintu way laayeen. marka Furs waxaa ku dhacday niyad jab cabsi aad weyn oo soo food saartay nin dambaba mubaariso uu soo bixin.
waxaana bilowday dagaalkii. markii labada ciidan saa dagaalka u bilaabeen isla markii furus waxa la soo galeen maroodiyaashoodii waxaana bilowday inay fardii muslimiintu maroodiyaashan ka yaacaan. walays aad u fara badan oo soo fulay midigtii muslimiinta, laakiin markii dambe Sacad bin Abi Waqqas baa keenay fikrada in xadhkaha laga jaro maroodiyaasha xadhkii ku xidhnaa si ay u soo dhacaan ragga korkooda saaran ee maamulaya maroodiga. sidii baana muslimiintu sameeyeen, xadhkii bay jareen, raggii korka saarnaana way kasoo daateen, sidii bay maroodiyaashina ku yaaceen goobtii dagaalka kaga baxeen. maalinkii koowaadna saasuu ku dhammaaday iyadoo wax natiijaani gaadhin labada ciidan. subaxnimadii maalinkii labaad waxaa muslimiinta soo gaadhay war farxad leh oo Cumar bin Khattab ugu sheegay in muslimiintii Shaam ka dagaalamaysa dagaalkii Yarmouk ay muslimiintu run jabiyeen oo taakule 6,000 oo nin soo wadaan oo Qacqaac bin Camr ku jiro. saxaabigan oo Abubakar Sidiq ku sheegi jiray in uu 1,000 nin u dhigmo. muslimiintu warka soo gaadhay aad ayay ugu farxeen. معشر الإسلام، ها أنا ذا أخوكم القعقاع بن عمرو التميمي. أبشروا واصبروا، جاءتكم أمداد الشام يتلو بعضها بعضا، وما أنا وهؤلاء إلا من طلائعها، وخلف الطلائع ألوفا مع هشام بن عتبة. الله أكبر، الله أكبر. isla markiiba Qacqaac iyo ciidankii 6,000 la socday way soo gaareen goobtii dagaalka. waxaanu Qacqaac dalbaday mubaaraza ama cid u soo baxda. waxaanu soo baxay nin hogaamiye weyn oo Bahmaan lagu magacaabo, waana ninka kaliya ee furus ka soo jeeda muslimiinta dagaal hore ku jabiyay. من يبارك؟ فيخرج أكبر قادة الفرس وهو بهمان. laakiin Qacqaac si fudud buu dilay markii uu ka takhalusay. ciidamadii furusna waxaa ku dhacay guuldarro nafsaani ah. waxaa la sheegay xamaasadii haysay Qacqaac awgeed in ay ugu yaraan 30 nin u soo baxeen mubaaraza, 30kii buu ka takhalusay. waxaana bilowday dagaalkii duhurkii kadib ilaa saqdii dhexe mugdiga dhexdiisa la isleeyay. laakiin marka muslimiinta ayaa wax cadaadinayay, Qacqaacna wuxuu keenay khidad uu kaga takhalusay maroodiyaasha waaweyn ee meesha dhex taagan. waxaanu sameeyey maaska ama marada wejiga lagu xidho ayuu fardaha iyo geelay wateen u xidhay si uga cabsiyay maroodiyaasha laftirkooda. maroodiyaasha markay arkeen fardahan maaskaga xidhan iyo geelan way ka yaaceen goobtii dagaalka oo sidii bay kaga baxeen. markii maroodiyaasha meesha saa uga baxeenba muslimiintu weerar bay qaadeen, dhaawacay dhimasho fara badanna u geysteen ciidamadii furus. waxaana loo bixiyay maalinkaas maalinkii aqwaad ama maalinkii gargaarka, sababtoo ah 6,000 taakulo ayaa soo gaadhay muslimiinta oo dagaalka wax ka bedelay. maalinkii saddexaad markuu waagu bariyay, muslimiintii waxaa kadiisa ku noqotay maroodiyaashii haddana mar saddexaad soo laabtay. dagaalkii markuu soo bilowday, maroodiyaashu sidoodii bay khasaaraad u fara badan geysteen, muslimiin badanna laayeen. Sacad bin Abi Waqqas markuu arkay khasaaraan ay maroodiyaashu geysaneen, wuxuu iskugu yeedhay hogaamiyaashii ciidanka. waxaanu kala tashtay sidii ka yeeli lahaayeen maroodiyaashan. waxaanay ku taliyeen inay maroodiyaasha indhaha ka tuuraan. waxaana loo xil saaray Qacqaac inuu maroodiga caddaanka isha ka tuuro. waanu ku guulaystay inuu maroodiga caddaa uu weynaa meesha indhaha ka tuuro, ku kalena cawaro. labadii maroodi iyagoo qaylinaya goobtii dagaalka ka baxeen, kuwii kaloo dhanna way raaceen oo ka daba yaaceen. markii maroodiyaashii ka baxeen, muslimiintu haddana sidooda caadada ahayd bay weerar qaadeen, khasaaraad fara badan u geysteen furus. maalinkii afraad subaxnimadii markuu dagaalku bilowday, Qacqaac wuxuu ku fikiray qaabku intuu ciidanka dhexbartamaha uga galo oo Rustum xagga dambe kasoo maamulay ciidanka uu soo dili lahaa. waxaanu dejiyay khidadii uu ciidanka ku dhex geli lahaa. waxaanu gaxaystay qabiilkii ugu dagaalyahansanaa. waxaanu ku guulaystay inuu ciidankii dhexbartamaha ka galo oo ciidanka bidixdiisii midigtiisiba isgaadhi weydo. inkastoo dhexbartamaha 20,000 oo ciidan taagnaayeen, haddana intiiba wuu laayay. Qacqaac uu ku guulaystay ilaahay markii inuu ciidanka dhexbartamaha ka galo, laakiin markuu Rustum gaadhay uu Rustum arkay uu baxsaday. laakiin nin ka mid ah ciidankii uu Qacqaac wato dhexbartamaha kusoo jeexay
ayaa Rustum ka daba cararay ilaa webiga ka daba cararay oo kurka ka soo jaray markuu soo laabtayna kelmadii caanka noqotay buu yidhi waan dilay rabbiga kacbadan ku dhaartay ciidankii Furs markay arkeen in Rustum hogaamiyahoodii la dilay way yaaceen iyaguna webiga dhex galeen laakiin muslimiintuna kama hadhin way daba yaaceen oo kumanaan buu webiga dhexdooda ku dileen xaggaasuu ku dhammaaday dagaalkii weynaa ee Qaadisiya ee socday muddo 4 cisho iyo 3 habeen muslimiintu waxaa ka geeriyooday 8500 oo nin xagga Furs ka geeriyoodeen 40,000 oo nin xaggaasay ka bilaabantay inay muslimiintu ku sii siqaan waqooyiga caalamka iyo bariga caalamkaba sababtoo ah intaaba waxaa ka tiirinaysay dowladda Furs taariikhdan oo kalena muhiim bay noo tahay inaan baranno muuqaalkeena maantana intaas ku eegay fadlan hadduu ku cajabiyey subscribe sar wassalaamu